Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona Moscow oo ku dhawaaqday xabad joojin ku meel gaar ah si loogu ogolaado rayidka inay gebi ahaanba ka baxaan wadanka Ukraine. Madaxweynihii hore ee Ukraine oo dunida u jeediyay laba talo oo ku saabsan Putin. Qodobadaas iyo qodobo kale iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Ukraine ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo comment-ga noogu dadaala aan ku bilaawaysa qodobka ugu horeeya. Madaxweynihii hore ee Ukraine ayaa dunida u jeediyay laba talo oo ku saabsan Putin. Madaxweynihii hore ee dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa uu haatan sheegay in mar waliba muhiim ay tahay in si weyn looga hadlo arrimaha taagan. Madaxweynaha hore ee Ruushka ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay sii wado dagaalka uu la damacsan tahay inay ku qabsato wadanka Ukraine. Isagoo ku labisan dharka militariga ayaa si caro leh uga hadlay sheegayna in ay Putin uu yahay shakhsi dhibaato la doonaya shacabka wadanka Ukraine. Fariin uu si gaar ah ugu diray Putin ayaa yiri ma naga qabsanaysid marnaba Mariupol, fadlan rumeyso nagama qabsanaysid Kharkiv, nagama qabsanaysid Kiev. Putin iskii ilow arrinta qareenka ayuu yiri. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weerarada dhanka Ruushka ka soconaya ay noqonayaan kuwo saameyn badan dadka shacabka ah ku yeelanaya. Walow ay jiraan dhibaatooyin kala duwan, haddana waxaa dunida idil ay hadal haysaa dhibaatooyinka haatan ka taagan halkaasi. Dhanka kalena daawadayaal Ukraine ayaa wax gebi ahaanba ay ka adkaan doontaa Ruushka. Xogayaha arrimaha dibadda wadanka Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in uu rumeysan yahay Ukraine inay dagaalka kaga adkaan doonto Ruushka. Muusan soo hadal qaadin xilliga la isdhihi karo wuu soo afjarmi doonaa dagaalka, balse waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan jabka soo gaarayo wadanka Ruushka. Blinken ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in ay mar walba shacabka Ukraine ay yihiin dad isjecel isla markaana meel sare ay kaga soo horjeesan doonaan dagaalka ka dhanka ah xukuumadda Moscow. Dowladda Mareykanka ayaa waxay ka mid tahay dagaalada iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka soconaya wadankaasi dadka ka soo horjeeda. Inkastoo shacabka wadankaasi ay aad uga hadal hayaan, kumanaan reer Ukraine ayaa waxay ku laabteen dalkooda iyadoona doonaya in ay markan dalka ay difaacaan. Tan iyo markii Ruushka uu ku duulay Ukraine, arrinta ayaa si weyn loo falanqeynaya waxaana haatan dalkaasi ku noqonaya dad badan oo shacab ah. Wasiirka gaashaandhigga Ukraine Oleksiy Reznikov ayaa waxa uu in ka badan 66,000 oo qof oo u dhashay Ukraine oo ku sugan dalka dibadiisa ay dib ugu soo laabteen dalkaas siday u difaaci lahaayeen wadankooda. Waxaana dadkaasi ka mid ah Yuriy Yandrovun oo macalinka kooxda Sheriff Tiraspol ah isla markaana ka dhisan Moldova. Kooxdaasi oo ka badisay kooxda Real Madrid ayaa ciyaarihii ugu dambeeyay horyaalada Yurub. Tanina waxay u muuqanaysaa macalinkii kooxdaasi Sheriff inuu hadda uu doonayo in uu difaaco wadankaasi Ukraine. Dhanka kalena Ruushka ayaa xabad joojin ku dhawaaqay iyadoona magaalooyinka qaar uu doonayay in uu si xoog ah uu ku galo. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa laba magaalo oo ku yaala Ukraine uga dhawaaqday xabad joojin ku meel gaar ah in ay furayso marinada gargaarka lagu gaarsiinayo shacabka laga bilaabo 10 subaxnimo waqtiga Moscow. Mariupol waa magaalo dekad leh waxaana maalmihii la soo dhaafay hareereeyay ciidamada Ruushka. Sidoo kalena waxaa dagaalku ka dhacaya magaalada Volanva. Mar sii horeysa duqa magaalada Mariupol waxa uu codsaday in shacabka loo ogolaado inay halka isaga baxaan kadib waxa uu ku tilmaamay inay go'doomiyeen ciidamada wadanka Ruushka. Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayaa magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ruushka. Dalalka dunida ayaana haatan si weyn u hadalaya wax waliba oo dhibaatooyin ah oo taagan, inkastoo dadka shacabka baqdin xoogan ay muujinayaan. Dhibaatada taagan ayaan la ogeyn halka ay ku dambeyn karto, inkastoo xukuumadda madaxweyne Vladimir Putin uu doonayay in Vladimir Zelensky uu ka adkaado. Maxaa u qorsoon hadda Mariupol iyo dhibaatooyinka Ruushka soo gaari kara?
xilli ciidamada Ruushka ay ku sugan yihiin waqooyiga iyo bariga dalka Ukraine ayaa waxa ay la daalaa-dhacayaan sidii ay u qabsan lahaayeen bartamaha wadankaasi ee muhiimka ah. Ruushka ayaa koonfurta Ukraine waxa uu arkaa inay muhiim u tahay guusha duulaanka dalkaasi ay ku qaadayaan, waxaana ay goodoomiyeen dhowr magaalo oo halkaasi ku taala halka uu qabsaday warshada dhalisa quwadda korontada ee nuclearka ee dhibaato weyn ay u noqonayso wadamada Yurub. Howlgalka ka soconaya wadanka Ukraine ayaa waxa uu yahay mid dhibaato badan ay criminalka ay ku noqonayso. tanina waxay xukuumadda Moscow ay doonaysay tan iyo 2014 inay awoodda wadankaasi la wareegto. Arbacadii afhayeenka Vatican-ka Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Ruushka uu halkaasi ku leeyahay dhismo cajiib ah. Qaraarada hoose ayaa waxay muujinaysaa muhiimadda uu gacanta ugu dhigay halkaasi. Madaxweynaha wadanka Ukraine uu horay kaga hadlay dhibaatada halkaasi ka dhalan karta. Ciidamada Ruushka ayaa waxa ay Ukraine ka soo galeen dhinaca Crimea kadib waxa ay u ruuqaansadeen dhanka magaalooyinka Mariupol ee dhinaca galbeedka Odessa, iyadoona goodoomiyeen in ay jiraan galaangalka uu Ukraine ay la leedahay badda, taasi oo waxyeelo weyn ka soo gaari doonto ciidamada wadankaasi. dhinaca bariga Crimea, ciidamada Ruushka ayaa waxa ay ku sii siqayaan magaalada Mariupol oo magaalo ay ku nool yihiin 450,000 oo qof. taasina waxay u muuqanaysaa in dalka Ruushka uu si fudud wax waliba uu kaga adkaan doono. haddii la wareegaan magaalada Mariupol, waxa Ruushka gacantiisa soo galaysa mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn Ukraine, waxaana sidaasi ku sameyn karaan marino dhanka dhulka ah oo isku xiraya Crimea iyo gobolada kale oo Ruushka rabo in uu gacanta ku dhigo. Dowladda Ruushka ayaa talaabooyinkan ay qaadayso waxay u muuqanaysaa in ay dhibaato badan ay kala kulmi karto. haatan gacanta wadada kaliya ee Ruushka ee ku xirta ayaa waxay tahay hal buundo oo dhaqaale badan lagu dhisay kadib markii ciidamada Ruushka ay halkaasi la wareegeen. waqooyi galbeed ee magaalada Mariupol ee Ruushka ayaa waxa uu u qabsaday in warshada dhaliso quwadda korontada ee nuclearka, taasi oo dhibaato badan ay noqon doonto. magaalada kale ee Ruushka militarigiisa ay qabsadeen waa magaalada Kherson, waxaana la sheegay in halkaasi webi uu ku yaalo, waxayna ay doonayaan in ay helaan awood kale oo ay gibi ahaanba dadka shacabka Ukraine ay ku dhibaateeyaan. lama oga wax walba halka ay ku dambeyn doonaan. haddii Ruushka uu u suura gasho in uu u ruuqaansado dhanka galbeedka ilaa Odessa, in ay hadda ay noqon karaan wadan kale oo awood buuxda heli kara. lama oga wax walba shacabka sidii ay kaga samata bixi karaan, haddana dhibaatooyin ayaa shacabka haatan haysta. dowladaha dunida ayaa il gaar ah ku haya wax waliba sida ay kaga samata bixi karaan dadka shacabka ah ee wadankaasi Ukraine. dowladaha dunida ayaana waxay doonayaan inay taageero cad ay u muujiyaan, walow dadku ay il gaar ah ay ku hayaan xaaladaha kala duwan ee ka jira wadankaasi Ukraine. wararkaasi ayaa ugu dambeeyay xaaladda guud ee Ukraine, balse Shiinaha iyo dunidana weli go'aamo ayay ka soo saarayaan xaaladda ka jirto wadankaasi. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka. saaxiibayaal, waa naga inta wixii ku soo kordhay Ukraine waa idin la soo socodsiin doonaa saacad insha Allah. nabadgelyo.